gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa maanta magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ay ka shaqayn doonaan u diyaar garow munaasabadda 18 May oo loo qoondeeyay inay tahay sanad guuradii 20aad ee xornimada Soomaaliland. gudoomiye ku-xigeenka waxa uu cadeeyay inay noqon doonto mid loogu diyaar garoobay habka ugu habboon ee xuskaasi loogu diyaar garoobi lahaa. waxa kale oo gudoomiyuhu ka hadlay in ay guddidu ka kooban tahay madaxda laamaha dawladda ee heer gobol iyo heer degmo. guddiga qabanqaabada 18 May iyadoo inooga hadhay muddo 13 sano. guddidaas oo kala ah maayirka degmada Boorama Cabdishire Bile, xogayaha dawladda hoose, isku duwaha uqaafta iyo diinta, isku duwaha waxbarashada, isku duwaha wasaaradda dhalinta, ciyaaraha iyo hidaha, isku duwaha horumarinta reer miyiga, ururka naaw, isku duwaha shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada. guddiga qabanqaabada gobolka 18 May waxay kaga duwan tahay sanadka 2020 sannadood iyo ka joogta. waxaa looga baahan yahay dadweynaha gobolka Awdal inaynu muujino qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2020.